xanuunka lagu dareemayo galmada rag iyo dumarba way isku arkaan hase ahaatee waxa aad ugu badan haweenka waxay dadka badan ay aaminsan yihiin qaarkood gabadha marka ay guurka ku cusub tahay oo kaliya in ay ku dareento galmada xanuun laakiin xaqiiqda saas way ka bedelan tahay oo waxaa jiro qoysas badan oo maxaa la dhahaa ilaa iyo 20 sano 30 sano isqabo isla nool isla markaasna arintaasi ay haysato una arko in ay tahay wax normal ah mudanna in loo adkaysto haweenka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed waxaa jiro waxyaabo badan oo muhiim ay tahay in laga hadlo isla markaana lagu badbaadin karo dhibaatooyin badan oo nagu foodle laakiin loo arko in ay tahay ceeb amaba wax aanan mudnayn in laga hadlo waa dareemi karaa mawduucan waa mawduuc xasaasi ah sensitive ah laakiin wax dhib ah kama imaanayo hadii looga hadlo hab akhlaaq leh isla markaana cilmiyeysan waxaan videogan kugu la wadaagi doonaa waxyaabaha keeno in galmada lagu dareemo xanuun iyo siyaabaha looga hortagi karo iyo waxyaabaha lagu daaweyn karo intaba ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani waxaan marka hore ka bilaabeynaa intaynan u gudagelin sababaha xanuunka meelaha laga dareemayo xanuunkaasi waxaan u kala qaadeynaa laba nooc mid laga dareemo qeybaha hore ama afaafka hore ee xubinta taranka ee haweenka iyo mid laga dareemo qeybaha dambe ee xubinta taranka ee haweenka labada xanuun waxaa loo yaqaanaa midka hore superficial midka dambena deep oo gudaha ayaa laga dareemayaa midka hore hadaan ku bilaawno ee afaafka hore laga dareemayo waa midka ugu badan ee badana haweenku isku arkaan isla markaana ay u aragto inuu yahay wax iska normal ah dabiici ah u baahan in loo adkaysto kaliya ma sheegato xitaa hadii goobaha ay caafimaadka ay timaado way kala xishootaa in ay qofka dhakhtarkeedii ahaa ay u sheegto ilaa la weydiiyo mooyaane ee ha ama maya ku jawaabto maxaa keenaya marka qodobka koowaad ee keenayo in xanuunkaasi la dareemo qeybaha hore ee xubintana laga dareemo waa in aysan jirin amaba ay yar tahay qoyaankii normalka ahaa ee loogu talagalay xubintaasi qoyaankaasi ama lubricantigaas waxa keenayo inuu yaraado waxaa kamid ah inuu yaraado hormoonkii loo yaqaan estrogen hormoonkaasina wuxuu yaraadaa waqtiyada gabadha marka ay dhasho ilmaha marka ay nuujinayso hadii ay qaadato daawooyinka dajiyaha sida diazepamka daawooyinka dhiigkarka daawooyinka xasaasiyada iyo hadii ay tahay hooyo sameynayso family plan oo isticmaasho daawooyinka looga hortago in uurka ay qaado intaasi waxay keenayaan hormoonkaas estrogen loo yaqaan inuu yaraado haduu hormoonkaas yaraadana wuxuu sababayaa qoyaankii loogu talagalay xubinta taranka haweenka inay soo deyso inuu yaraado hadii qoyaanka uu yaraadana waxa meesha ka dhici karo frictionkaasina wuxuu keenayaa xanuunkaasi ha ugu badnaadaan haweenka sidoo kale ragga qaar way dareemaan xanuunkaas qodobkaas marka aan kasoo tagno waxaa jiro qodob kale oo muhiim ah oo badanaa isna keeno ayadoo oo intaasi aysan jirin haddana qoyaankii uu yaryahay waxaa keenayo in xaaladda istimtaaca ama waqtiga loogu talagalay muddada istimtaaca ama xamaasad gelinta amaba stimulationka waxa loo yaqaano galmada intaysan dhicin ka hor in ay aad u yartahay hadii aad u yartahay ayadana waxay keenaysaa in qoyaankaasi uu yaraado isla markaasina ay xanuun ku sababto gabadha daba hadii qoyaankii xubinta taranka uu yar yahay waxaan ku daaweyn karnaa ama kaga hortagi karnaa xanuunka waa laba nooc in la dheereeyo waqtiga ama muddada istimtaaca ama stimulationka iyo in la isticmaalo waxyaabaha loo yaqaano lubricant ama waxyaabaha qoynaya xubintaasi kareemya jiro waxyaabahaas oo idil ina isticmaali kartid marka qodobkaas kasoo tagno waxaa jiro qodob kale oo labaad oo ayadana keenayo gabadhii inay ku dareento xanuun qodobkaas waxaa loo waaye emotional fact ama waxyaabo emotional ah ay gabadha dareemeyso tusaale ahaan oo kale gabadhan haday hore ula kulantay kufsi hore ama tacaddi dhanka galmada oo
oo kale ama ayadoo yar lasoo farxumeeyay ama xoog wax loogu qaatay oo kale cabsidaas waxay keenaysaa iyo sidoo kale gabadha marka ay guurka ku cusub tahay waqtiga la dhaho 7 oo kale haddii xanuun badan aragtay oo kale waxay ka qaadanaysaa fikir ah xanuun mar walba oo loo soo dhawaado waxay dareemaysaa in xanuunkii uu sugaayo haddii gabadha ay walwalsan tahay uur ay leedahay oo kale ay ka walwalayso ilmaha ay dhaleyso se u dhaleyso wax walba oo walwal ku furaayo haddii gabadha ay ku jirto xaalad khilaaf dhanka ayada iyo qoyskeeda ama ninkeeda tusaale ahaan oo kale hadday maseersan tahay hadday isfahm waa meesha uu ka jiro oo kale hadday cuqdad dareemayso oo kale waxyaabahaas oo emotionaliskaas ah dhan waxay ku dareemaysaa gabadha xanuun oo kuma dareemayso wax raaxo ah marka qodobkaas aan kasoo tagno qodobka kale waxaa waaye wax loo yaqaano vaginismus waxaa loo yaqaanaa xubinta taranka haweenka in ay noqoto isku soo aruurto contraction ay sameyso ciriiri ay sameyso involuntary ayna ku sameynaysaa wax ayada ay ugu talagasho ma ahan ciriirigaas ay sameyso waxay noqonaysaa in maxaa la dhahaa meesha ciriiri noqoto mar walba oo yacni calaaqadaas ay dhacaysan xanuun ay ku dareerto waxyaabaha keenayana waxaa kamid ah oo kale gabadha markii oo bikrijminta waqtigaas oo kale haddii bishaas oo kale xanuun ay dareento isbuucyadaas ay dareento cabsida ay qaado oo kale muscleskeeda waxay isu diyaarinayaan in ay is aruuriyaan adkaadaan tightness ay noqdaan taasina waxay keenaysaa ciriiri waxaana badanaa lagu daaweeyaa wax loo yaqaano Kegel exercise waxaa waaye waxaa iska dhigaysaa qof inuu kaadi rabo camal kaadi inaa deerabtid cisho rabtid taas waxay sameynaysaa marka muscleska ama murqihii xubinta dumarka haweenka inay sameeyaan relaxationkaasi tan waxay keenayaan in aad ka fiicnaato oo wax kale oo daawooyin kale loo qaato ma jiraan sidoo kale waxaa jiro cinjir yar oo meesha la geliyo oo loo yaqaano wuxuu sameynayaa dilatation oo sameynaya vaginal dilatation loo yaqaana cinjirkaasi marka wuxuu sababaa asna in meesha uu kala fogeeyo laakiin waxa ugu muhiimsan oo ugu fiicanna waxaa waaye Kegel exercise inaad sameysid qodobkaas marka aan kasoo tagno oo qodobka kale waxaa waaye in uu jiro inflammation ama infections sida videogeeni hore ee aan kaga soo hadlaynay noocyada qoyaanka waxaa jiro cudurro lagu kala qaado galmada cuduradaas badankood waxay sababaan in lagu dareemo xanuun dhanka galmada ah taasina way keenaysaa waxaan lagu daaweynaa cudurkaas in la daaweeyo si kale macnaha qofkaas xanuunkaas kagama tegi karo waxaa jira waxyaabo kale oo skin disease ama disorders skinka maqaarka waxyaabaha ku dhaco cudurada ku dhaco oo kale sida eczemada oo kale waxyaabahaasna ayadana waxay keenayaan cuncunka xubinta taranka geesihiisa ilaa iyo korka dhan oo ku cuncunaa ayadana sidoo kale waxaa lagu qaad ama laga dareemaa xanuun inahaas aan kasoo hadalno dhan waxay ku qotomaan qaybta laga dareemayo xanuunka qaybaha sare ee xubinta taranka haweenka qodobka kale ee labaad waxaa waaye xanuunka in laga dareemo qaybaha gudaha ah ee xubinta taranka qaybaha gudaha xanuunka in laga dareemo waxaa keeni karo kow in gabadha lagu sameeyo qaliin gudaha in looga sameeyey minka in looga sameeyey afka hore minka in lagu sameeyey adi any qaliin oo loogu oo gabadhaas gudaha looga soo sameeyo oo kale waxay keenayaan xanuun sidoo kale shil inay la kulantay oo dhanka qaybahaas hoose ay wax kasoo gaareen qodobka labaad waxaa waaye endometriosis wax la dhaho cudur maxaa la dhahaa ku dhaco waxaa waaye minka maxaa la dhahaa fallopian tubeska wax la dhaho tubadan dheer meelaha ovarieska soo saaro ukumaha soo saarayaan minka afkiisa fibroidiska probiotika cudurada qaybaha gudaha ah ee xubinta taranka ku dhaco oo dhan waxay keenayaan ayagana in gabadhii ay ku dareento xanuun taasina waxay u baahan tahay in lagu ogaado marka gabadha ay u tagto dhakhtarkeeda gynecology-ga in uu ku sameeyo visito gacanta geliyo kadibna maxaa la dhahayo ogaado meesha wax ka jiro waxaan filayaa qaybta dhiibka ah in ayadana aa fahamteen si uusan videoga nooga dheeraanin waxaan kusoo koobayaa xanuunkaasi badanaa gabdhaha way yareystaan ma sheegaan oo lama wadaagaan xitaa qofka lamaanaha la ah way qarsataa waxayna u aragtaa haddii ay u sheegto qofka lamaanaha la ah in ay niyadda ka jabinayso oo kale hase ahaatee ayada ayaa waxaa ka qaadaysaa niyad jab niyad xumo iyo khilaaf badanaan guryo badan oo Soomaaliyeedna way ku burburta arrintaas laakiin lama ogo marka ugu yaraan haddii aad xitaa dareemayso xanuunkaas ha ka qarin qofka lamaanaha kula ah u sheeg raadiya xal
si wadajir ah marka xalkaas aa u raadinaysiinna waxay kubcinaysaa korna u qaadaysaa calaaqada labadiina idinka dhexeyso ma ahan wax mudan in la qarsado ama ba laga xishoodo qaybta emotionalska ahna waxay muhiim u tahay gabadha in ay la wadaagto qofka saaxiibkeed ah ninkeeda ah haddii la heli karo dhakhtar psychology ahaan inay la kashitid ama qof ay isleedahay uu kaaga aqoon badan yahay oo kale inaad u sheegtid ugu yaraan xal waa helaysaa waxaan rajeynayaa marka inaad si fiican oo wanaagsan aad ugu dhuuxdeen una fahamteen waxay su-aal aad qabtiin waxaad igula soo wadaagi kartaa qaybta commentiga ama qaybta instagramka insha allah waxaan rajeynayaa wixii aqoonteeda ah ee ilaahay iga fahamsiiyey inaan idinkaga faa'iideeyo waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu